السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada haddeerta waxaan isla arkaynaa qaybta navigationska oo meelaha in la aado ah iyo sidoo kale qaybtan viewga iyo layoutka dabcan waa soo yara sameyna balse shortcutidiisa waxaa rabaa si gaar inaan isula aragno okay qaybta horta navigationka isla fiirino go to line waxaa waaye in sar hebel aa aadid control g ayaa isticmaalaysaa tusaale kale waxaa jeednaa qaybtan marka waxay noo samaysan intaana sawir noo samaysan haddaan rabo sawirka shanaad ama lixaad ama tobanaad haddaan rabo inaan aado control g aa leeyahay shanaad oo kale ku dhufanaa sawir shanaadaa lii keenaa cursor saa ujeedid sawir shanaadaa la geeyay control g haddaan rabo sawirka koo iyo tobanaad waxaa lii keenaa sawir koo iyo tobanaad mujeda so hadhow marka errorka marka kuusoo qabanayo koodka error markuu kuusoo qabanayo waxaa lagu sheegayaa errorkaas sawirka uu kaa haysto marka daartiina isla markii aad waxaa leedahay control g sawirkaas isla markaa aadaysaa fahmaysaa marka shortcutdada ugu muhiimsan waa isleeyahay shortcutkan gaar ahaan navigationka go to sample waxaa waaye calaamad ahaan u aadaysaa waa control shift o tusaale kale haddii aan fiirino shortcutyadeena control shift o haddaan dhaho calaamadda hashtag hadaa qoro meesha taala ayaa liijenaya calaamadda hashtaggaas okay waa calaamadaas ama wixii lamid ah qori kartis ayaa markaasi kuu soo baxaya dhow marka navigate back and forward waxaa waaye calaamadahana isticmaalaysaa waa alta filarta ay isticmaalaysaa alta iyo filarta isticmaalaysaa forward and backward ama hore u soco ama jadaal u soco waxaa isticmaalaysaa alta filar saa ujeed hore u soconaa ama jadaal ayuu u soconayaa ujeeda cursorka saa ujeedin ama hore u soconaa ama jadaal ayuu u soconayaa marka cursorka daartina filaaraha shortcut ahaan u wadid sidaan ay u wadi kartaa sida caadigiina mooska la isticmaala oo meesha artid ayaa klik loo siiyaa balse shortcutkan waa mid asina muhiim ah marar qaar aa u baahanaysa okay refill in explorer shortcutka waa the most important yaa isleeyahay gaaraan cashirkan waa midka ugu muhiimsan kan waxaa waa refill in explorer qofkaan aqooni waa meesha folderska dabcan control iyo haddaan dhaho qaybtaan explorer loo yaqaanaa wax walba ay ku yaalaan dbcada everything ayaa explorer loo yaqaanaa marka failashan dhan waxay ku jiraan dabcan folder ku jiraan marka failkan haddaa artid folderka ku jira inaa aadid waxaa isticmaalaysaa shortcutan isticmaaltaa control k control r tusaale kale haddaan rabo inaa kan arko wax leedahay control k ayaa leeyahay kadib r ayaa ku dhufanaya waxaa laii soo furaya meesha folderska oo uu jiro saa ujeeda wuxuu ku jiraa desktopka vs code html ujeeda meeshaas ayuu ku jiraa marka very important waa control k kadib r ayaa ku dhufanaysaa tusaale failka meesha ku jira haddaan rabo inaa arko waxaa leedahay control k r ayaa ku dhufanaya waa laii soo furaya saa ujeeda halkan ku jira ayaa lii leeyahay okay very good marka intaas ayaa markaasi very important ah qaybta kale marka isla fiirino view and layout waxaa soo qaadanay qaybtan view ku dhufanay kadib appearance waxaa soo qaadanay zen mode shortcuts marka wuxuu noqonaa control k aa leedahay kadib z ayaa ku dhufanaysaa zen mode waaye oo zen mode hadhow centralizekiisa wixiisa waa intaa ka bedeleysaa waada centralize oo badanaa saaran yahay waa ka qaadaysaa hadhow okay marka waa control k z waaye sidaas ayaa markaa isticmaalaysaa okay marka haddaa u baahan tahay control z control k iyo z ayaa markaa ku isticmaalaysaa okay full screenka iyo waxyaalahaas noo soo aragnay qaybta waxaa total terminalka waxaa la qaybta terminal new terminal aa dheheynay ayaa isticmaali kartaa shortcutka waxaa isticmaali kartaa control j ayaa isticmaali kartaa marka terminalka lagu soo furaya waa lagu xirayaa waxaa jira marka word rapki aan soo qaadanaynay oo sawirka cusub ahaa word rapka marka waxaa samayn kartaa shortcut ayaa isticmaali kartaa word rap saa ujeed shortcutka ayaa isticmaali kartaa okay shortcutkiisa wuxuu noqday marka alta z ayaa isticmaali kartaa saa ujeed alta z hadaa isticmaalo word rap ma la sameynayo alta z hadaa dhahona word rap ayaa la sameyn doonaa okay word rap ayaa la sameyn doonaa okay so intaas weeyaan terminalka waa terminalka qaybta hadda total waxaa laga wadaa control g hadaa dhaho waa iisoo furaya control g hadaa dhahona waa ii xiraya okay control k kale hadaa dhaho waa ii xiraya sida caadigaana waxaad kusoo furi kartaa control shift tilda kusoo furi kartaa calaamada tilda oo ku taalo like meesha number 1 ku taala calaamad tilda agteeda ay ku taala yani meesha tildaha ay ku taala okay so laakiin kan control jeeda waa total waaye wuu soo furaya wuuna xiraya okay switch terminalka waxaa waaye terminalka markuu saan u furayahay waxaad soo furi kartaa laba terminal kala sii furi kartaa hadda tusaale kale hal xaba automatic ugu furmaya hal mar haddaa isla fiirino halka xaba automatic ugu furmaya mid kale ku dari kartaa balaas aa dhigi kartaa mid saddexaad kusii dari kartaa okay hadhow back end iyo front end ayaa markaa ku ranjaraynaysaa iyo admin banan hadduu leeyahay projectyaas ayaad ku ranjaraynaysaa mid walba haddii aa isticmaalayso main stage oo kale marka mid walba hadaartina aadid saana keli ku siinaysaa balse wax isticmaali kartaa shortcutka ujeedaan
control page up iyo page down marka control qabanaysaa page up iyo page up iyo page down I think qof walba uu fahansan yahay wuxuu ku yaalaa keyboardka qaybta sare gaaraan qaybta midigta ay ku yaalaa marka saa ujeeda hadda si fiican fiiri qaybtaas sare kor iyo hoos u socdaa marka sidaas ayaa marka isticmaalaysaa page up iyo page down okay intaa waa terminalkii haddii aan rabo terminalka inaad tirtiro tusaale kale terminalkaa soo furay waxbaa ku qoray tusaale waxaan dhahay mk dir waxaan dhahay folder ii sameey mk dir kadib folder lii sameey waxaan dhihi doonaa mic camal ay sii qoraya folderka mic watchna waa lii sameey haddaan rabo marka inaad tirtiro waxaa leeyahay cls aan leeyahay waa lii tirtiraya waa lii tirtiraya marka insha allah waxaan kusoo joojooynaynaa shortcutkan aadka u yar marka waxaa isla arki doonaa إن شاء الله كورس كلا بلاوي طبعا waa HTML CSS كورسنا waa free بقول لكن انت قاعد إن شاء الله وإن isla arkena waa in muhiim ah aan horan u soo yar aragnay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته